maanta ay taariikhdu tahay 19 November 2024 si rasmi ah ugu dhawaaqaya natiijada ku meel gaarka ah ee heer qaran ee doorashooyinka madaxweynaha ku xigeenka madaxweynaha iyo xisbiyada qaranka. waxaan yeerin doonaa natiijada xisbiyada qaranka. tirada guud ee codeysay doorashada xisbiyada qaranku waa 646,188 oo u dhiganta boqolkiiba 53. tirada guud ee codadka ansaxa ah doorashada xisbiyada qaranku waa 630,812 oo u dhiganta boqolkiiba 8. tirada codadka xumaaday ee doorashada xisbiyada qaranku waa 16,032 oo u dhiganta boqolkiiba 2. tirada codadka xisbiyada iyo urur kasta helay doorashada xisbiyada qaranku waa sidan hoos u qoran. 1. tirada codadka ururka barwaaqo helay waa 16,852. tirada codadka ururka rajo helay waa 2,083. tirada codadka ururka horseed helay waa 78,218. tirada codadka ururka tala wadaag helay waa 6,080. tirada codadka xisbiga ucid helay waa 10,105. tirada codadka ururka ka helay waa 131,507. tirada codadka ururka hilaac helay waa 59,569. tirada codadka ururka shacabku helay waa 2,014. tirada codadka xisbiga wadani helay waa 216,284. tirada codadka xisbiga kulmiye helay waa 108,100. natiijada doorashada madaxweynaha iyo ku-xigeenka madaxweynaha. tirada guud ee codeysay doorashada madaxweynaha iyo ku-xigeenka madaxweynuhu waa 647,860. tirada guud ee codadka ansaxa ah doorashada madaxweynaha ku-xigeenka madaxweynaha waa 638,126. tirada codadka xumaaday ee doorashada madaxweynaha iyo ku-xigeenka madaxweynuhu waa 9,528. tirada codadka xisbi kasta helay doorashada madaxweynaha iyo ku-xigeenka madaxweynuhu waa sidan. tirada codadka xisbiga wadani helay waa 407,908 cod oo u dhiganta boqolkiiba 63.29. tirada codadka xisbiga kulmiye helay waa 225,519 cod oo u dhiganta 34.81 boqolkiiba. tirada codadka xisbiga ucid helay waa 4,699 oo u dhiganta 0.74 ama eber dhibic 74. ma jiro xisbi ama urur helay boqolkiiba 20 codadka gobol kasta. sidaa daraaddeed komishanka doorashooyinka qaranku ee heer qaran wuxuu si rasmi ah ugu dhawaaqayaa in natiijada ku meel gaarka ah ee doorashada xisbiyada qaranku ay ku guuleysteen. 1.
xisbiga wadani 2 ururka kaah 3 xisbiga kulmiye halka natiijada ku meel gaarka ah ee doorashada madaxweynaha uu ku guuleystay xisbiga wadani oo madaxweyne ugu sharaxnaa mudane cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi cigaal halka ku-xigeenka madaxweynaha u sharaxnaa xisbiga wadani uu ku guuleystay mudane maxamed cali cabdi maxamuud ugu dambeyntii sida ku cad qodobka 138aad fiqradda koobaad xarafka xa iyo qodobka 146aad fiqradda afraad komishanka doorashooyinka qaranku wuxuu nuqulka rasmiga ah ee natiijooyinka doorashada madaxweynaha ku-xigeenka madaxweynaha iyo xisbiyada qaranka u gudbinaya maxkamadda sare si ay uga gudato waajibaadkeeda sharciga ah allah mahadle